bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa ka wararka ku soo dhawaada qodobadan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waa arbaco taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 21 bisha 7 Juulaay sanada 2021 ka qodobadan idin haynana waxa kamid ah diyaarado maanta siyaabo kala duwan ugu soo dhacay qaybo kamid ah gobolada dalka warar dheeraad ah ayaa laga helayaa waan idin soo gudbin doonaa duqeyn la'aanta al-shabaab oo la ogaaday inay kordhinayso awoodaha gudaha dalka ay ku leeyihiin al-shabaab maamulka Puntland oo hanjabaad adag u soo diray ganacsatada maamulka Galmudug iyo arrimaha xasaasi ah oo ay salka ku hayso arintaasi dagaalo ka dhan ah al-shabaab oo ka soconaya gobolka Galgaduud iyo tiradii ugu badneed oo al-shabaab ah oo lagu khaarijiyay dagaaladaasi iyo Ethiopia oo qalalaasi ugu xooggan lugta la gashay mar kale is arag wanaagsan ismaqal wanaagsan ayaan daawadayaal idin leenahay halkan waa ka wararka waxaan ka codsanaynaa inaad ka wararka like saarto share na dhahdo subscribe na inoo saarto channelkan ka wararka si xogahan baahino maalin waliba ay bulsho badan oo Soomaaliyeed u gaaraan oo markaasina raba inay xogahayna si maalinlaha u helaan aynu ku bilownaa daawadayaal afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdinuur oo waraysi siiyay mid kamid ah hay'adaha dalka ka jiro ee warbaahinada ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda dalka iyo saameynta ciidanka Soomaaliya ay ku yeelatay duqeyn la'aanta kadib markii Mareykanku uu hakiyay weeraradii cirka ee uu la beegsan jiray al-shabaab Xaashi ayaa sheegay in duqeymuhu ay qayb weyn ka qaadanayeen dagaalka adag ee lagu jiro kooxda al-shabaab wuxuuna shaaciyay in markaas in lagu bartilmaameeyay jiray goobaha ay ku dhuumaalaysanayaan xoogaga al-shabaab ee aysan gelin karin ciidanka lugaynayo sidoo kale wuxuu tilmaamay inay jeclaan lahaayeen in mar kale dib loo bilaabo duqeymahaasi si loogu wiiqo awoodaha kooxda al-shabaab ee gudaha Soomaaliya hadii ay suuragal tahay ama ay bilaabaan duqeynta waxa ay meesha ku jira sababtoo ah waa markaas ama ay bilaabaan duqeynta waa wax meesha ku jira sababtoo ah meelo aan ciidanka lugaynayo oo san gali karin ay diyaaradahaas ka qayb qaadan lahaayeen waana arin loo baahan yahay ayuu yiri afayeenka ciidamada xoogga dhinaca kale wuxuu sharaxaad ka bixiyay howlgallada militariga ee haatan ka socda dalka wuxuuna sheegay in ciidamada kala duwan ay markaas u baahan yihiin horin madaafiic ah oo askarta lugaynaya ay ka taageeraan dagaalka lagula wajahayo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab marka ciidanka lugaynayo oo meel ku dagaalamayo waxa loo markaas lagu kabaa horin madaafiic ah marka waad garan kartaa horinta madaafiicda ah hadii lagu markaas kabo urkaas madaafiicdiisa waxay u maleynayaa markaas shabaab iska daayay xitaa wax kale oo cilin kara ma jiraan ayuu hadalkiisa si raaciyay ugu dambeyn waxa uu afayeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo markaas xusay hadii la joojiyo taageerada caalamiga ah ay lahaayeen markaas ay helayaan ciidamada in la wareegi karaan amniga dalka oo dhan maadaama la qorsheynayo in Soomaaliya ka baxaan ciidamada AMISOM hadii dawladaha kaalmeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya markaas ma aragtay markaas taakulayntaas noo dhameystiraan waxa waaye wadanka amnigiisa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa ciidamada Soomaaliya u la wareegi karaan ayuu yiri mar kale hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dawladda dhexe ee Soomaaliya ay kordhisay dhaqdhaqaaqyada militariga ee ka soconaya koonfurta iyo bartamaha dalka kuwaas oo suura geliyay in ciidamada xoogga dalka iyo kooxaha al-shabaab kala wareegaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobollo badan oo ku yaalo dalka si gaar ah gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa militariga ah ay halkaas ka wadeen howlgallo markaas la yaab leh oo al-shabaab عشرة في عن لوجو دقيق دانك كلنا دعوة Mareykanka ayaa duqeyntii ugu horeysay waxa uu ka fuliyay gudaha Soomaaliya tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden Mareykanka ayaa duqeynta cirka ah oo ka dhanka ah ururka al-shabaab ka fuliyay meel u dhow magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maalintii shalay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaana waxa uu sheegay in Mareykanku uu taageero ciidamada Soomaaliya oo weerar ku soo qaadeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab waxay sheegtay in duqeymaha lagu sameynayo qasaaraha ka dhashay duqeyntaasi ee gaari kara dadka rayidka ah balse wararkii uu markaasi ugu horeeyay waxay tilmaamayeen sida ay sheegtay inaysan jirin dad rayid ah oo wax ku noqday duqeymahaasi madaxweyne Biden wuxuu xadiday markaasi weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn meel ka baxsan dalkiisa Mareykanka madaxweynihiisa isagoo ka horeeyay ee Donald J. Trump ayaana kordhiyay weerarada dhanka cirka ahaa ee diyaaradaha Mareykanku ka geysanayeen muddadii uu xilka hayay gudaha dalka Soomaaliya iyo dalal kale oo ku yaalo bariga Afrika iyo sidoo kale Aasiya wax yar ka hor inta uusan xafiiska ka tagin wuxuu amar ku bixiyay in 700 oo ciidamo gaarka ah loo soo diray Soomaaliya laga soo saaro oo horay dawladii ka horeeyay ugu soo direen daawadayaal wali waxa daawanaysaan warkaas waa markaasi wali waxa daawanaysaan warka waxaan ka codsanaynaa ka warka like saarto share dhado muuqaalkana aad markaasi bulshada kale la wadaagto si xogahan baahino ay u gaaraan bulsho badan ee Soomaaliyeed dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in saaka diyaarado siday waa markaasi diyaarad siday rakaab ay ka soo ambaxday magaalada Nairobi ay shil ku gashay garoon diyaaradeed oo ku yaala degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo diyaaradan oo nuuceedu yahay
FYGRS ayaa la sheegay inay ku sii jeeday dhanka degmada Elwak ee ismaamulka Mandera sida ay shaaciyeen ilo dadka deegaanka ayaa sheegaya in diyaaraddu ay siday ilaa 45 qof oo ka soo qaaday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana jira khasaare soo gaaray inta la xaqiijiyay waxa shilkan ku dhaawacmay ilaa 7 qof halka ay waxyeelo ka soo gaartay diyaaradda kadib markii ay ka baxday dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan sidoo kale wararka ayaa intaas ku daray in garoonka diyaaradda ay shilka ku gashay uu ahaa mid xirnaa sanadihii la soo dhaafay balse duuliyaha uu si degdeg ah ugu dajiyay diyaaradda halkaasi kadib markii ay soo wajahday cilad xooggan ma jiro wali wax faahfaahin ah oo maamulka gobolka Gado ka bixiyay shilkaasi diyaaradeed iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay intaba xaaladda ayaa hadda caadi ku soo noqotay sida aan wararka ku helayno waxaana gurmad degdeg ah loo fidiyay diyaaradda shilka gashay iyo sidoo kale dhammaan rakaabkii la socday ee laga soo qaaday dalka Nairobi markaasi gudaha dalka Kenya si gaar ah magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi qaybaha dambe ee warkaygan saaxiib yaal ku sii qeynaa gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland mudane Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo waraysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa ka hadlay dagaalka adag ee ay kula jiraan dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Daesh Sanyare ayaa shaaca ka qaaday in ay markaasi xididada u siibeen shabakadihii Al-Shabaab ee ku sugnaa Mudug isla markaana ay wali wadaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo sidoo kale wuxuu hanjabaad u diray ganacsatada Mudug gaar ahaan kuwa lacagaha badan waa markaasi baadda ah siiyo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab isagoo oo sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan gudoomiyaha ayaa sidoo kale intaas waxa uu ku sii daray in nabaddu ay muhiim u tahay ganacsiga loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga guud ee deegaanka walaal horta ganacsatadu dalka ayay wax ku leeyihiin waxa ay ku ganacsanayaan waa nabadda haddii nabad la waayana ganacsan maayaan nabadda waxa markaasi waxa uu dhahay nabadda waxa suganaya nabadda waxa sugayana waa ciidanka dhiig baa ku baxaya dhaqaalaha ku baxaya dadaal baa ku baxaya inay ganacsatadu qaybtooda qaataan waa waajib diini ah oo saaran bulshada Soomaaliyeed si gaar ah ganacsatada ayuu dhigay gudoomiyaha gobolka Mudug Sanyare dhinaca kale waxa uu ku baaqay ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland inay qayb ka qaataan dagaalka ka socda gobolka Mudug ee ka dhanka ah Al-Shabaab halganka lagu jiro kooxaha argagixisada waa inay qaybtooda ka qaataan hadda marka uu cudur markaasi daaraynay laakiin argagixisadu halkan joogtay xididada ayaan u siibnay lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay hadda waxa laga rabaa inay isgartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo ayuu markale sii raaciyay dalkiisa Sanyare sidoo kale waxa uu intaas sii raaciyay meesha loo socdo waa in ganacsiga uu kordho amnigu bato argagixisaduna yaraato Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay xoojisay howlgallada ka dhanka ah kooxaha Al-Shabaab waxaana bishii hore 18 ka tirsanaa Al-Shabaab ay ku toogatay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoona kuwa kale wali ay xabsiyada uga buuxaan waxaana ay sheegeen maamulka Puntland si gaar ah duqa magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ee ka dhanka ah deegaanada maamulka sidoo kalena Gaalkacyo si weyn looga sifayn doono maadaama shabakadihii halkaasi ku sugnaaba la sifeeyay waa hagaag daawadayaal qaybaha dambe ee warkayga aan ku sii dhownahay iminkan hadii aynu eegno dibadda madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii ku adkaystay xal labada dal ah oo markaasi lagu hirgelinayo Qubrus isaga oo taageeray qorshe qayb ahaan dib loogu furayo magaalada ay markaasi firaaqayeen dadka Qubrusta Greega ah khudbad uu Erdogan ka jeediyay waqooyiga magaalada kala qaybisa ayaa waxa uu astaan u noqotay talaabo loo qaaday dib u furista magaalada cidlada noqotay markaasi dalkaasi ku taala taasi oo ka hor imaanaysa qaraarka qaramada midoobay iyo diidmada midowga Yurub isagoo ka hadlayay munaasabad lagu xusay 74 sano guuridii ka soo wareegatay qabashada Turkiga ee jasiiradan kala qaybisa markaasi kala qaybsan ayaa Erdogan waxa uu weeraray isku dayada markaasi guul daraystay ee qaramada midoobay ku midaynayso labada Qubrus isagoo oo yiri ma hayno 50 sano oo kale oo aan khasaarino wax horumar ah lagama gaari karo wada xaajoodyada hadii aan la qirin inay jiraan laba shacab iyo laba dal oo isku xuquuq ah ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga jasiiradda ayaa u kala qaybsan jamhuuriyadda Qubrus oo ay maamulaan dad Greek ah iyo jamhuuriyadda Turkishka ee waqooyiga Qubrus oo ay aqoonsan tahay kaliya Ankara hogaamiyaha Qubrusta Turkish markaasi ayaana waxa uu xulafo ay leeyihiin Erdogan isla markaana taageera xal markaasi labada dal ah intii labada Qubrus la midayn lahaa ayaa sheegay in si bilow ah 3.5% magaalada looga saarayo daawadayaal warkii aad kala socoteen ka wararka wanaga inta waxaan ka codsanayna muuqaalka like saarto share-na dhahdo bulshada Soomaaliyeedna la wadaagto si xogahan baahino ay u gaaraan bulshada badan ee Soomaaliyeed waa maasantii nabadgelyo